متقنا تجد الحياة جميلة بعطائها، كن متقنا تلقى بنفسك فرحة تحيا بها، كن متقنا تجد الحياة جميلة بعطائها، كن متقنا تلقى بنفسك فرحة تحيا بها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهو متورا قال تعالى: وبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. نحريس سببتي ذو هلك عليك أهاتي أيادو تشرع النبي هداد هان لهيد من قلب سنو قلبي أدك عريرها قوال قدريري لها. قال تعالى: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. ألا وحو كويري النبي عيسى إن عاود دبعي عدك الرعداء مؤمنين تا. عائشة waxay tiri rasuulka waxa uu yimid yahuud waxay ku yiraahdeen saam calayk oo ah dhimasho korkaaga ha ahaato. Markaa bay Caaisha tiri lacnad korkiina ha ahaato iyo caadhada Alle. Markaa buu ku yiri rasuulku calayhi salaatu wassalaam: Caaisha istaji oo u tur, waxaan kaaga digayaa afxumada iyo adadayga. Waxay tiri maad maqlayn waxay lahaayeen. Rasuulku wuxuu yiri waxaan ku yiri maad maqlayn, waan ku celiyay habaarkoogii, aniga waa la iga aqbalayaa, iyaga lagama aqbalayo. Jariir waxa laga wariyaa inuu yiri rasuulku qofka laga qariyo turidda khayr oo dhan baa laga qariyay. Hadaladii laga yiri turidda waxaa ka mid ah: maxaa ka wanaagsan iimaan lagu qurxiyo cilmi, cilmina maxaa ka wanaagsan lagu qurxiyo camal, camalna maxaa ka wanaagsan quruxdiisu tahay turid. Urwa bin Zubayr waxa uu yiri turiddu waa xikmadda madaxeeda. Faa'iidada laga helo turidda waxaa ka mid ah waa wadada janno lagu gaadho. Waxay calaamad u tahay iimaanka dhamaystirnaantiisa iyo islaamnimada wanaageeda. Waxay calaamad u tahay addoonka wanaagiisa iyo akhlaaqda wanaagsan. Waxay calaamad u tahay guusha ifka iyo aakhiraba. Waxa tusaale inoogu filan siduu nebigu ugu turay wiilkii ku yiri ii fasax nebi allow sinada. Markaa buu yiri nebigu calayhi salaatu wassalaam: ii soo dhawow. Waxa uu nebigu weydiiyey: ma jeclaan lahayd in laga sinaysto hooyada? Markaa buu yiri wiilkii: maya nebi allow. Haddana wuxuu weydiiyey nebigu calayhi salaatu wassalaam: ma jeclaan lahayd in laga sinaysto inantaada? Markaa buu yiri: may nebi allow. Waxa uu nebigu weydiiyey: ma jeclaan lahayd in laga sinaysto walaasha? Markaa buu yiri wiilkii: may nebi allow. Markaa buu yiri nebigu calayhi salaatu wassalaam: gabdhaha kalena waa sidaa oo kale. Markaa buu duceeyey nebigu calayhi salaatu wassalaam: Allah inaga dhigo kuwa isku tura